بسم الله. ما أنت waxaan sameynaa hadii Ilaahay yiraahdo dawo homemade ah oo runtii aad iyo aad ugu fiican cudurro fara badan. dhowr jeer waxaan soo bandhigaa casharro maqal ah oo runtii muuqaal aan ahayn maanta laakiin waxaan idin soo bandhigaa practical tii oo sameynaya idin soo bandhigaya. waxaad halkan ka arkaysaa liin dhanaan aad u weyn badan, laba xabo toona iyo basal weyn badan. basasha weyn ka badan lama baahna, wax yar aan uga baahana halis intaas aan uga baahana intaas ayaan uga baahana. cudurrada soo socda haddii dhibaato ka haysato biidni illaahi alkariim waxaan isleeyahay wax badan ayay ka taraysaa dawadaanu. horta sideedaba waxaa la yidhaha garantii ma jiraan oo boqolkiiba boqol wax la yidhahdaa ma jiraan, adduunyadaba kama jiraanba. laakiin waxaan dhihi karaa in ka badan 90 boqolkiiba wax badan ayay idinka tari doontaa bahashaan haddii Ilaahay yiraahdo. haddaad qabto sokor ama ay kugu soo socoto sokoru, ama aad cholesterol qabto, ama dhiikar qabto, ama wadnaha iyo maxay tahay cudurrada chronic disease la yiraahdo aad qabto, wax fara badan ayaad ka faa'iideysaa. sidaasaan u jarjarayaa, inta ayaan isku jarjarayaa xabada liinta, labada xabo toonta iyo jabka basasha. makiinadan ku shubaa, makiinada wax shiida ayaan ku shubaa. 2 maalmood ayaan intaa qaadanayaa. hore ayaan u sameeyey, alxamdulilah waa ku caafimaaday. waxaan jeclaystaa marka dadka u baahan, aniga sokor la iga sheegay hadda ka hor, waana ka dawoobay alxamdulilah rabbil caalamiin. waqti yaraan uga dawoobay, laakiin sokorteedu bilaaw ayay ahayd. in fact sokor caadiya ma ahayn, laakiin waxay ahayd waxa loo yaqaano pre-diabetic ayay ahayd. sokor ay ugu soo socotay macnaha weliba high ah, aad iyo aad progressive ah. marka intaan isku sameynaa saas aad cunaysaa. waxaa laga yaabaa 2 bilood inaad ku anfacdo, 2 bilood ay gudaysaa. waxaa laga yaabaa 3 bilood inaad wado, dadka qaar 3 bilood, 2 bilood, 6 bilood, sanad. dadka qaar xataa dadka type 1 qaba, sokorta type 1 la yiraahdo, waxaan isleeyahay waxbay u taraysaa. waxaan isleeyahay sababtu maxay tahay, qofku allergy ku noqonaya cuntada uu cunayo. sokortu wax kala maahanba sidaba, waxyaabo fara badan la sheegaa, laakiin xaqiiqadu waxay tahay oo aniga hadii la weydiiyo, xaqiiqadu waxa weeyaan qofku wuxuu noqonayaa allergy ayuu wuxuu ku noqonayaa waxa loo yaqaano calorie ama calorie waxa la yiraahdo qofka si uu yaqaano, ama la yiraahdo maxay ahato ii sheegan calorie ana dhihin waxa la yiraahdaa carbohydrate carbs waxa la yiraahdo iyo sokorta ayuu wuxuu ku noqonayaa maxay ahato wuxuu ku noqonayaa allergy ku noqonayaa qofku. marka dhiiggiisa kacaya haddii la daweeyo allergigaasna waxaan isleeyahay qofku waa caafimaadaya. marka saddexdan shay oo la isku daro ayaa daweey kara. saddexdan shay maadooyin ku jira maxay yihiin? maado walba ama sun la dagaalanta ama maxay ahato jirka bini'aadamka caafimaad u keenta ku jirta meeshaan. hadday noqoto potassium, hadday noqoto magnesium, hadday noqoto zinc, hadday noqoto maadada la yiraahdo kibriitka ama sulfurka la yiraahdo, maadooyin tiradii ka batay oo tiradii ka batay qofkii yaqaan qofkan aqoonna ay uga filan tahay inuu isticmaalo qaabkan uu isticmaalo ayaa ka buuxa. marka saasaan u jarjarayaa, aad arkaysaan hadda saasaan u jarjarayaa, mishiinkan ku shubayaa. haddii mishiin aad heli karin, kal iyo mooye qaaday intaa isku baabi'i kuntaa isaga dhig, dabeetana qaadaad ku qaadanaysaa maalintii 2 qaado, 3 qaado, 4 qaado. adiga waxaa la rabaa 2 maalmood intaas inaad ku dhammaydaa la rabaa haddii Ilaahay yiraahdo. marka la socdo liinta waa macal qolofkeeda, arkaysaan saasaan afka uga jarayaa, intaasaan yaraynayaa. sidaas u yaraynayaa, sidaa u shiidaya, waa soo mayray, sidaas ayaan u samaynayaa. waxaan idiin sheegaa biidni illaahi alkariim inaad caafimaad fara badan dareemi doontaan haddii Ilaahay yiraahdo. waqti yar weliba lacala haddii uu kugu dhaco maxay ahayd laab dilaac iyo waxyaabo noocaasa, waxaad samaynaysaa liintan keligeed ayaad miiraysaa, koobaad ku miiraysaa biyaheeda cabaysaa. laab dilaac ayadaa u daawaa. marka waa liinta keligeed yaa, liinta keligeed laab dilaac ayay daawo u tahay. waxaan u malaynaa waxaan intusi doonaa markaan dhammaystiro haddii Ilaahay yiraahdo. halkaan ku diyaarshay watan ahaa waxaa ku jirta liintii oo jarjaray, maxay ahayd basashii iyo toontii ayaa halkan ku jiraan. waan shiidayaa, markaan dhammaystiro ayaan intusaasay noqoto haddii Ilaahay yiraahdo. watan ahaa sidaanay noqotay, intaasay noqotay, sidaasay u cagaar tahay. xasuuso waxaan isticmaalayaa qaado caaga ayaan isticmaalayaa, waayo ashta xoog badan ayaa ku jirta.
dhalada ayaan ku shubayaa intaasoo kale markii inaad qaadataan la rabaa qiyaastii. haddaad aada u liidato oo sokorta saa'id ay kuu hayso iyo dhiigkarka iyo waxyaabaha noocaasa amounti fiican aad ka qaadanaysaa 4 jeer maalintii ama 3 jeer ugu yaraan ayaad qaadanaysaa 3 qaado. sidaasay ku dhammaatay waa taasaha saasaad leedahay qaadadas caagga oo kalead qaadanaysaa intaasoo kalead halkii marba qaadanaysaa subaxdii markaad soo kacdo habeenkii markaad seexanayso qadada oo kaleeto 3 jeeraad qaadanaysaa ful qaadadaas fulka waxaad arki doontaa haddii ilaahay yidhaahdo wax badan in iska bedelaan caafimaadkaada mar walbay kaa dhammaato waa samaysanaysaa. dadka qaar waxaa laga yaabaa sanad inay wadaan macnaha waxay ku xiran tahay qofka caafimaadkiisa ku xiran tahay qaarna waxaa laga yaabaa 2 bilood see ku garanaysaa dhakhtarkaada u tegaysaa waad baaraysaa simbal dhiiggaadaad baaraysaa waxaad arki doontaa weega koowaadba in automatically dhiiggaaga sokorta u dhacad arki doontaa wax badan oo isbedel aad arki doontaa haddii ilaahay yidhaahdo. sidaas ayaan kusoo idlaynayaa waxaan u malaynaya inuu noqdo 10 macnaha faa'iido badan ku jirto ilaahay ka dhigo like lagama rabo share lagama rabo sadaqa fi sabilillah weeyaan ilaahay ku caafiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.